aqoon isweydaarsi ku saabsan dhibaatooyinka gudniinka fircooniga u leeyahay haweenka iyo sidii loo joojin lahaa caado dhaqameedka gudniinka fircooniga ayaa maanta lagu qabtay xarunta ururka dhalinyarada ee Ayodha uu ku leeyahay magaalada Boorame ee gobolka Awdal. aqoon isweydaarsigan oo ka soo qayb galeen qaybaha haweenka ee ku nool meelaha uu ka socdo mashruuc ay dhaqaalihiisa bixinayso hay'adda UNFPA isla markaasina ay fulinayaan ururka dhalinyarada ee Ayodha. mashruucaasi oo magaciisa la yiraahdo mashruuca dardargelinta joojinta gudniinka fircooniga. tababarkan ayaa lagu lafaguray dhibaatooyinka uu haweenka u leeyahay gudniinka fircoonigu waxaana doodo ku saabsan halkaasi ku soo bandhigay qaar ka mid ah haweenka ka soo qayb galay oo isugu jiray kalkaaliyaal caafimaad oo khibrad u leh dhibaatooyinka uu u geysto haweenka gudniinka fircoonigu iyo haween dhaqameed cilmi u leh sababaha bulshadu u caadaysatay gudniinkan. ugu horreynna waxaa sharaxaad ka bixiyay aqoon isweydaarsigan ujeedadiisa khabiir Axmed Ciga Tiigsi oo ah la taliye sare ururka dhalinyarada ee Ayodha iyo Dr. Hodan Jaamac Cabdi oo ah madaxa waaxda caafimaadka iyo wacyigelinta ee ururka dhalinyarada Ayodha waxaana ka mid ah hadaladoodii tan maanta ka qayb qaadanaysan waxa weeye sidii loo nafaquri lahaa gudniinkaasi iyo dhibaatadiisa iyo waxyaabaha u taagan su'aalaha la idin soo jeedin doono. waxa markaa la idin ka rabaa laba qaybood ayaa isku jirtaa qolyo xagga caafimaadka ku xeel dheer iyo qolo xagga bulshada ku xeel dheer. su'aalaha waad kala leedihiin waxaana idin qaybin hodan baa idin qaybin si habaysan wada soconayaan hadalkiinu ha ahaado mid kooban oo fariin xamil weliba si haween ahaaneed adigu ku sii wada amba qaadaan haddaad caafimaad tihiin iyo haddaad haweenkii kala tihiinba waayo innigaa og dhibaatooyinka u geysto haweenka iyo wixii laga dhaxay. runtii barnaamijkaas oo hore noogu sheegay wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyinka gudniinka inaanu la fakurno ama aynu ka sheekaysano gudniinka fircooniga ah ama gudniinka sidiisaba dhibaatada uu ku hayo. marka insha Allah taala waxaanu bilaaban doonaa doodeena su'aalaha ku bilaaban doonaa su'aalahaas simanbood u qaybsan doontaan si kooban uga jawaabi doontaan. sidoo kale waxa dhibaatooyinka gudniinku uu leeyahay haweenka kulankaasi kaga waramay haweenka aqoon isweydaarsiga ka qayb qaadanayay oo isugu jiray kalkaaliyaal caafimaad oo aqoon u leh dhibaatooyinka gudniinka iyo qaybaha kale ee haweenka ee ka socday goobaha mashruuca wacyigelinta gudniinka ka socdo ee degmooyinka Gabiley, Dila iyo Boorama. ama dhibaatadiisa uu sameeyo gudniinkani waa tan oo horta markii ugu horeysay inantii gudniinkii markii lagu sameeyay iyadii baa dhibaato kala soo kulantay oo waxa laga yaabaa toddobaadkii ugu horeeyay ee gudniinkeeda ay ku jirtay markaadii baa ku dhalaysa mar iyadii baa xanuun badan ka haysa waxa laga yaabaa inay infection qaado ama caabuq wax la yiraahdo oo halkii bukaansho haddana inantii uga yimaado bukaansho ay maalinta la soo kulanto kadib haddana ay dhibaatooyin badan oo dambe hadhow toole kala kulantay ilanimadeeda. mar labaad waqtiga inantii ay didigaatay ee caadadii ay hesho haddana dhibaato badan bay kala kulmaysaa. mar saddexaad marka inantii la guursado waa tan haddana waxaa loo diyaarinayaa in inantii lagu sameeyo jariin tii markay kasoo gudubto maalintii fowlanaysa baa haddana foosha u timid fooshii jariin baa haddana sugayay jariinkii marka la jaro tolmo dambe haddana loo celiyaa sugayay. dadeynta meesha meel isugu timaadeen lagu hadalayaaba ayaguna sii fidiyaan maxaadooyinka maxay laga sheego masaajidda laga sheego saasun baa laga gudbi karaa sayaniga dumarka yaryar hablaha yaryar aqoonta laftooda inay ka qayb qaataan oo tii aan aba aqoon lahayn ama wax badan lahayn hay u sheegaan tii bixinaa iyo waxa ka joogsato miyigoo kalena inuu u tabaabashaysan si dumarku in dumarka laga guursanay hadday furan tahay inay dhib ku tahay awalad waxaa jiri jirta waqtigii hore oo hooyaday ka maqli jiray waxa la jiray hablaha waa la heli jiray waxa istusaya ama badalgal nafas u yaqaan yaa la sameeyay jiray waxa jiri jirta markuu ninkii intii la daba galo hadduu furninku arko inuu ka dudi jiro gabadha ka noqon jiray. si kastaba ahaatee kulankan lagaga hadlayay dardargelinta iyo joojinta gudniinka hablaha ayaa ka socda meelo ka mid ah degmooyinka Gabiley oo kala Baydh iyo Xunshaley iyo degmada Dila iyo tuulada hoos timaadee oo Xarwaarisleey iyo degmada Boorama taasi oo degmooyinkaasi oo dhan ka wadaan wacyigelinta joojinta gudniinka fircooniga ururka dhalinyarada ee Ayodha ee xaruntiisu tahay gobolka Awdal magaalada madaxdiisa Boorama. Haashim Sheekh Cumar Good, Somalisat TV, Boorama.